saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkeenii aan uga hadli jirnay arrimaha tiknoolajiyadda iyo caalamka tiknoolajiyadda wixii markaas ka cusub si aan ula soconno dhammaantayo moobiladii ugu dambeeyey ee caalamka soo baxay saacadihii ugu dambeeyey ee smartiga ahaa telefishinadii ugu dambeeyey kombuyuutarradii ugu dambeeyey iyo wax walba oo ka cusub caalamka tiknoolajiyadda iyo akhbaaraadkiisa iyo wararka sida hoose looga soo dusinayo shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda ku shuqul kale aan toos u gudagalno barnaamijkeena aan ku bilowno shirkadda Samsung waxaa suuqyada caalamka kusoo foollay telefoonka Samsung A54 oo ka mid ah telefoonada meel dhexaadka ee ay iibsadaan dadka dakhligoodu iska kooban yahay silsiladda telefoonada Samsung waa kuwa waddankeena loogu iibsiga badan yahay sababo badan oo ay ka mid yihiin in lacagtiisu aysan aad qaali u ahayn telefoonkan muxuu kaga duwanaan doonaa kii isaga ka horreeyay ee Samsung A53 isbedel ay shirkadu ku soo samaysay telefoonka A54 waxaa ka mid ah dhanka bateriga oo kale A53 baterigiisu wuxuu ahaa 5000 mAh halka A54 baterigiisa iyo awoodda baterigiisu ay noqon doonto 5100 mAh su-aasha isweydiinta mudan ayaa iyaduna waxay tahay telefoonkan ma ahaan doona fast charging oo qofka si degdeg ah ugu buuxsamaya weli arrintaas si rasmi ah shirkadu ugama hadlin inuu telefoonkan ahaan doono fast charging oo qofka si degdeg ah ugu buuxsamayo oo chargerka uu si degdeg ah ku qaadanayo shirkadda telefoonada Honor oo soo bandhigtay telefoonkooda cusub ee Honor Play 6C maxaynu ka naqaanaa telefoonkan qiimaha uu suuqyada ku soo galay se waa imisa telefoonkan Honor Play 6C ayaa ballaca shaashadiisu waxay tahay 16 inchi iyo bar nooca loo yaqaano IPS oo ah nooc shaashadeed si wacan u muujiyo coloriska waxa uu qofku daawanayo sidoo kale dhinacyada shaashadu aad bay waasac u yihiin telefoonkan waxa uu kugu shaqeynayaa adeega 5G awoodda baterigiisuna waa 5000 mAh Honor Play 6C wuxuu leeyahay oo kugu shaqeynayaa fingerprintiga chargerkiisuna waa nooca afweynaha ah ama loo yaqaano Type-C-ga USB-ga wuxuu ku shaqeyn doonaa nidaamka Android 11 moobilkan gadaal wuxuu ku lahaan doonaa laba kaamiro oo mid ay tahay 13 pixel tan kalena ay tahay 5 pixel sidoo kale kaamirada hore ee selfie-ga ama video calling-ka loo isticmaalo waxay noqon doontaa 5 pixel waayahay markaan aan isla eegno maskaxda iyo qiimaha telefoonkan ulama jeedo qiimaha Soomaaliya lagu keeni doono ee waxaan ka wadaa qiimaha uu ku yaalo suuqyada Shiinaha oo ah waddanka ay ku taalo shirkadda Honor ee telefoonkan soo saarta waayo ma garan karno hadda qiimaha Soomaaliya lagu keeni doono telefoonkan waaba haddii la keenay raamka telefoonkan waa laba qaybood mid ah 6GB iyo mid ah 8GB halka maskaxdiisuna ay tahay 128GB kan raamkiisu uu yahay 6GB qiimihiisu waa $155 halka kan raamkiisu uu yahay 8GB na qiimihiisu uu yahay $183 waayahay haddana waa Elon Musk ninka adduunyada ugu hantida badan oo mar walba wax cusub soo kordhiya ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay in shirkadiisa Tesla ay soo saarayso dhamaadka sanadkan gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada laakiin ku shaqeeya koronto gaariga oo lagu magacaabi doono Tesla Semi ayaa shirkadda Tesla qorsheynaysay in ay soo saarto ilaa sanadkii 2017 laakiin dhowr jeer ayuu gaarigan dib u dhacay gaarigan Tesla Semi ayaa hadda la soo saaraya dalabaad kooban dhowr shirkadood ayaa ilaa hadda dalabkooda gaarigan sii qadintay tusaale ahaan shirkadda Pepsi 100 xabbo ayay dalbatay oo ay sii qadimitay yani Walmart iyo UPS shirkadahaas iyaguna dalab ayay sii qadinteen qiimaha gaarigan ayaa ka bilaabanaya $150,000 yani gaarigan xamuulka ah ee gebigiisuba korontada ku shaqeynaya ee aan ku shaqeynayn shidaalka ayaa qiimihiisu wuxuu ka bilaabanayaa $150,000 aan ku noqono mar kale Samsung iyo wax soo saarkeeda markii ay suuqyada telefoonada saameyn weyn ku yeelatay oo qayb dhan oo suuqyada telefoonada ah ay xiratay haba ugu sareeyo telefoonkeeda ay ku dagaal gasho oo ah keedii ugu dambeeyay S22 haddana dhankaas iyo saacadaha ayay u kacday oo saacado smart ah oo dad badan ay iibsadeen ayay soo saartay welise waxaa moodaa shirkadda Samsung in ay hamuum u sii qabto
inay suuqa kula dagaalanto shirkadaha waaweyn ee ay loolanka iskula jiraan. Markaan maxay suuqa kusoo kordhisay? Samsung ayaa copyright-ka iyo xuquuqda hal abuurka fargashi smart ah loo diiwaangeliyay. Sida ay baahisay mareegta Sun Mobile oo ka faallooda arrimaha tiknoolajiyadda, Samsung ayaa qorsheynaysa in ay soo bandhigto fargashigeeda lagu magacaabo Galaxy Smart Rim. Waa fargashi kuu sahlaya in aad la socotid caafimaadkaaga sida wadna garaacaaga intuu marayo oo kale. Sidoo kale fargashigan waxaad ka maamuli kartaa dhifaysyada kale ee aad haysato sida telefoonkaaga, tabletkaaga iyo xitaa telefishinkaaga guriga kugu xiran. Laba sababood ayaa loo badinayaa in dadku aad ugu iibsan doonaan fargashigan smartiga ah ee ay soo wado Samsung oo ay saacadihii smartiga ahaa uga maarmi doonaan. Tan koowaad waa sida dhow caafimaadka qofka ula soconayo, iyo tan labaad oo ah in baterigiisu wanaagsan yahay oo uusan si degdeg ah u dhacayn. yacni farantigan smartiga Samsung ay soo wado baterigiisu waa wanaagsan yahay si aad u dhaqso badan oo degdeg ahna u dhici mayo. haddana aan aadno halkaas iyo waddanka Shiinaha. warbaahinta ka faallooda arrimaha tiknoolajiyadda ayaa soo dusisay warar ku saabsan taleefanada shirkadda Vivo ay soo wado dhammaadka sanadkan. bisha 12aad ee sanadkan ayaa la rajeynayaa in silsiladda Vivo X oo ka koobnaan doonta Vivo X90, Vivo X90 Pro iyo Vivo X90 Pro Plus ay suuqyada soo geli doonto shirkadda Vivo. silsiladii hore ee taleefanada Vivo X80 ayaa ilaa xad wanaagsaneed, waxaana aad loogu xasuustaa tayadii wanaagsaneed ee kaameradooda. waxyaalaha ay cajiibka ku tahay shirkaddan Shiineeska ee Vivo waa sida ay xoogga u saarto ee ay u tayeyso kaamirooyinka taleefanadeeda. silsiladan taleefanada ayaa kusoo bixi doona 3 midab oo kala ah buluug iyo madow iyo orange. silsiladan cusub ee taleefanada ayay Vivo doonaysaa in ay kula tartanto weliba dhanka kaamirada taleefanada iPhone 14, Pixel 7, Google-ka iyo taleefanada cusub ee ay soo saartay Xiaomi. waayahay ka waran haddii aad awood u leedahay adoo diyaarad saaran inaad si caadi ah u isticmaashid internetka. shirkadda SpaceX ee uu leeyahay ninka adduunyada ugu hantida badan waa Elon Musk ayaa sheegtay in adeegyada ay bixin doonto wixii loo gaaro 2023 ay ka mid noqonayso inay internet wifi ah siiso diyaaradaha hawada sare maraya. yacni adoo diyaaradda iska saaran oo hawada sare maraya ayaa qof si toos ah video call oo la hadlaysaa ama video gaming ayaad iska ciyaaraysaa ama qof kalaba la ciyaaraysaa. adeegan internet ee dayax-gacmeedyada SpaceX ay siin doonaan diyaaradaha ayaa diyaaradii u baahan waxay iska bixinaysaa lacag u dhaxaysa $12,500 ilaa $25,000 bil walba. xawaaraha internetka ay bixin doonto SpaceX ayaa noqonaya ilaa 300 megabyte ilbiriqsigiiba. waa xawaare aad u sareeya dabcan. sidoo kale shirkadda SpaceX ee internetkan siinaysa diyaaradaha ayaa waxay sheegtay in shirkadaha ay qalabkan u geynayso oo iyadu aysan ugu xirayn diyaaradaha oo ay iyagu keensanayaan dad ugu xira qalabkan internet diyaaradahooda, laakiin ay siinayso damaanad qaad inta qalabkan uu diyaaradahooda ku xiran yahay. waayahay ma ka mid tahay dadka tabletska xiiseeya? shirkadda Blackview oo bishii 8aad ee sanadkan soo bandhigtay tabletkeedii Blackview Tab 13 ayaa hadda waxaa la soo dusinayaa warar ku saabsan tabletkeeda cusub ee ay soo wado bisha November ee aan ku guda jirno, kaas oo lagu magacaabo Blackview Tab 15. shirkadda Blackview markii ay soo bandhigtay tabletkeedii hore ee Blackview Tab 13 aad buu suuq u helay maadaama ay tayadiisu aad u sareysay. dad fara badan ayaana gatay. sidoo kale shirkadda ayaa markaan taabkeeda cusub horumarin ku sii samaysay iyadoo shaashadda xoogga saartay oo shaashadda ballaarisay kana dhigtay ilaa 10 inchi iyo bar. sidoo kale wuxuu lahaan doonaa tabletkeedan cusub 4 samaacadood oo ah nooca Smart K-ga loo yaqaan, kuwaas oo kor u qaadi doona tayada codka taabkan. warar laga soo dusinayo Blackview Tab 15 ayaa sheegaya in uu ku imaan doono RAM 6GB ah iyo maskaxa 128GB. sidoo kale waxaad awood u leedahay in aad gashatid card memory oo ah 1TB. kaamirooyinka taabkan ayaa kala ahaan doona 13 megapixel iyo 8 megapixel. haddii aad ku shaqaynaysid taabkan Blackview Tab 15 waxaad u isticmaali kartaa kombiyuutar ahaan adigoo ku xiranaya keyboard iyo mouse. taabkan
oo ku shaqayn doona nidaamka Android 12 ayaa shaashadiisa laba u kala qaybin kartaa qayb aad gaming iskaga ciyaarto iyo qayb aad ku shaqaysato oo hawlahaaga aad ku qabsato yacni shaashadii ayaad laba u kala qaybinaysaa waayahay meeqo ayuu noqon doonaa qiimaha taabkan waxaa la sheegayaa in wixii loo gaaro bisha November aan ku guda jirno dhammaadkeeda toos looga iibsan karo taabkan website-ka AliExpress qiimo dhan $290 waayahay markaana waa dhankaas iyo Mareykanka gudihiisa waxaa aad loo hadalhayaa maalmahan application yaab leh oo muddo yar oo kooban ay kula degeen dad ka badan 1 milyan oo qof abkan waxaa lagu magacaabaa Gas magaciisuba waa Gas muxuu yahay abkan marka qaabkee ayuu u shaqeeyaa yaana sameeyay abkan Gas ee warbaahinta qabsaday waxaa aad u isticmaala teenagerska ama dhalinyarada 12 sano jirka ah wuxuuna u shaqeeyaa qaab tusaale ahaan qofku wuxuu gelinayaa magaciisa iyo goobtiisa waxbarashada deedna asxaabtiisa ay wax wada bartaan mid ka mid ah oo uusan u soo baxayn magaciisa ayaa fariin u soo diraya yacni fariin niyad dhis ah ama dhiirigelin ah tusaale ahaan waxaa tahay qof hal abuur badan waana guuleysan doontaa mustaqbalka ama waxa loo soo diraya fariin u qoran saan oo kale markaan kula joogo waxaan dareemaa xasilooni iyo farxad yacni abkan oo dhan waxaa loo naqshad gareeyay in ay dadku isugu diraan fariimo isugu jira dhiirigelin jacayl iyo wanaag oo dhan kuwaas oo aadan garan karin magaca saaxiibkaaga ku soo diray abkan waxaa sameeyay Nikita Beer oo ka mid ahaa asaasayaashii shirkadda Facebook abkan isagoo ilaa hadda ka shaqeeya 11 gobol bes oo ka tirsan waddanka Mareykanka ayaa halkii saacba waxaa la soo degta 30,000 oo qof dailyna waxaa active ah oo caadi u isticmaalaya si daily 1 milyan oo qof dhanka kale abkan Gas ayaa wajahaya eedeymo ah in uu dhalinyarada caafimaadkooda maskaxiyan u waxyeeleynayo maadaama ay jiraan kuwa badan oo aan loo soo dirin fariimahaas wanaagsan deedna dareemaya nuqsaan iyo in aysan asxaabtooda iyo bulshadaba wax qiimo ah ku dhex lahayn $12,500 baad ku guuleysanaysaa haddii aad tahay hacker xirfadiisu sareyso shirkadda isgaarsiinta ee Vodafone Oman ayaa soo bandhigtay tartan ay u furtay kooxaha hackeriska ah iyadoo sheegtay hackerkii soo hela dulduleel amni oo ka jira isla nidaamka shirkadooda in uu ku guuleysan doono lacag dhan oo gaaraysa $12,500 yacni waxay hackeriska ku leedahay isku daya bal in aan nidaamka shirkadeena soo jabsataan deedna haddii aad aragtaan meelo aan ku liidano oo nidaamka shirkadeena laga soo jabsan karo noo soo sheega annaguna abaalmarin baan siinaynaa deedna meeshaas aan ka jilicsanahay ee shirkadeena laga jabsan karo mustaqbalka ayaan iska hagaajinaynaa waayahay waa mar kale iyo Samsung iyo waliba taleefanadeeda Soomaalidu ugu iibsiga badan yihiin sida aan hore u soo sheegnay taleefanada ay ugu iibsiga badan yihiin dadkeenu hadda waa nooca ee shirkadda Samsung taleefanadan ayaa kuwa qiimahoodu iska jaban yahay ama nooca loo yaqaan fi'a al-mutawassita Samsung ayaa soo saartay taleefankan cusub ee A04e oo ka mid noqonaya silsiladda shaashada taleefankan ayaa noqonaysa 6.5 inch A04e gadaal wuxuu ku leeyahay laba kaamiro oo 13 pixel ah horeyna waxa uu ku lahaanayaa mid selfie ah oo 5 pixel ah raamkiisa ayaa laba qaybood ahaanaya mid 3GB ah iyo mid 4GB ah maskaxda taleefankan ayaa waxay noqon doontaa mid 32GB ah mid 64GB ah iyo mid 128GB ah sidoo kale wuxuu awood u lahaan doonaa taleefankan in la geliyo memory card ah 1TB awoodda bateriga taleefankan ayaa noqonaysa 5,000 mAh wuxuuna ku shaqeynayaa taleefankan nidaamka Android 12 saddex midab ayuu ku imaanayaa taleefankan A04e waana madow blue iyo midab dahabi ah qiimaha taleefankan ayaa noqon doona sida la qiyaasayo $150 ama wax u dhow maadaama uu taleefankan yahay nooca loo soo saaray dadka dakhligoodu iska kooban yahay sida Soomaalida oo kale